السلام عليكم ورحمة الله. maxaa ka jiro inay tahay dhamaadka dunida 29 Abriil. Dad badan ayaa aaminsan inay tahay 29 Abriil dhamaadka dunida. Midaasna waa nasiib daro. Anagoo islaam ah in hadalladaas macna darada aan dhageysano. Sidaan wad ognahay baryahan waxaa la hadalhayaa dhagax weyn ee ku soo wajahan dhulka. La filayo inuu soo gaaro dhulka 29 Abriil. Kadib markii aan iskilownay diinteena ayaa waxaan bilownay inaan aaminno rumaysanana wax ka fog xaqiiqada. haddaynu nahay islaam waxaan ognahay in dhagaxan uu sababi doonin dhacdada qiyaamaha ama inay dhacdo saacada. hadday noqotana uu soo dhaco dhagaxan sababi doono dhacdada qiyaamo. waayo waxaan ognahay in dhamaadka dunida ama saacada qiyaamaha ay dhici doonin ilaa laga arko calaamadaha waaweyn oo ay ka mid yihiin imaatinka mahdiga, soo bixinta juuj wa maajuuj ama yuug wa maajuuj sida taqaano, soo bixinta dajaal iyo inuu soo dego nabiyullaahi ciisa calayhi salaam iyo arrimo kale oo fara badan. sidaa daraaddeed dhagaxan ku soo socda dhulka 29 Abriil ma soo afjari doono nolosha dhulka. in hadalladaas dadka loo mashquuliyayaan dhegeysanana waxaa sababay inaan daynay xarigii alle, xarigii xiriirinayay alle iyo adoonkiisa. waxaa waajib ah inaanu laabanaa alle oo aan isu dhiibnaa uu khushucnaa, khaasatan bishan barakaysan ee Ramadaan. waa inaan ilgaar ku fiirinaa, waayo waxay ka duwan tahay oo ka fadli badan tahay bilaha kale ee 11 ah. bishan barakaysan ee Ramadaan goordhow ayay bilatay, waana bilow waxaa lagu jiraa 10 ugu hore. sidaa daraaddeed waa inaan aad ugu faa'iidaysanaa, waayo cid kasta ma oga inay gaari doonto Ramadaanka soo socda, macnaha Ramadaanka sanadka dambe. bishan Ramadaan waxay leedahay xurmo gaar ah. waa bishii toobad iyo laabashada in alla loo laabto, waa bishii istighfaartii rabitooga, waa bil la silsileeyay shayaadiinta kuwada waaweyn ee aadmiga wax foosha xun u qurxin jiray. waa bishii nabigeen Muxammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay iyo Jibriil ay daraasayn jireen Quraanka. fadaaisha bishan barakaysan ee Ramadaan waxaa kaloo ka mid ah in bishan ay tahay sir, inaad sooman tahay ama inaadan soonayn kaliya waxaa garan kara alle. xasanaadka maalmaha caadigaan sameyno waan ognahay inay tahay 10 amtaaliha. hase ahaatee bishan gudaheed haddii xasanaad uu sameeyo qofka, sida inuu qofka soomo, sadaqa bixiyo, dad afuriyo, quraan badan akhriyo ama salaadaha badiyo, cid garanayso jisadiisa awaalmarintiisa iyo ajirka la siin doono cid taqaana ma og ma jiraan alla mooyaane. alle wuxuu xadiis al-qudsi ku yiri camal kastoo ibnu aadamku sameeya isaga ayaa iska leh, marka laga reebo soonka aniga ayaa iska leh, waana ajzi bihi, aniga ayaan awaalmarinaya. as-sawmu lii waana ajzi bihi, soonka aniga iska leh, anigaan awaalmarinaya. sirta kale uu leeyahay bishan barakaysan ee Ramadaan waxaa kaloo ka mid ah in maalinta qiyaame ku saaymeynta uu alle si sira jannada geli doono. markay malaa'igtu arkaan waxay dhihi doonaan siday ku soo gasheen jannada. marka ay ugu jawaabi doonaan alle si sir ayaan u caabudnay, isagana si sir ayuu noo soo geliyay jannada. aad ayaan ugu mahadcelinayaa walaalaha ka dhiibtay aragtidooda muuqaalka midkan ka horeeyay oo ahaa maxaa soo upload garin doonaa, maxaa janno ka soo gelin doonaa maalmaha bisha soon ama inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. muuqaal sidee ah ayaan ku soo upload garin doonaa channelka. walaalo badan ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay, waxayna badankood isku raaceen inaan soo upload gareeno muuqaalada diiniga inta lagu guda bisha barakaysan ee Ramadaan, maadaama ay tahay bil barakaysan oo gaar u ah cibaadada, toobadkeenka, in alla loo soo laabto iyo waxa la midka ah. muuqaalkeena maanta halkan ayaan ka keenaynaa, waxaan isla ogaanay gabagabada mawduuceena maanta. intayna markaa kulmayno waxaan idinkaga tegayaa fii amaanillah. Ramadaan kariim.